qofku hadduu dhaqaale kaa fiican yahay ma wax walba miyuu kaa fiican yihi hadduu aqoonta maadigaa kaa badiyo miyuu kaa badiyaa nolosha kale miyuu modelka yahay bini aadamku uu ku daydo caalamkaynu maanta joogno waa caalam la yidhaahdo cuquusha waa la weeraraa caqliga bini aadamka waa la weeraraa si wixii la rabo looga dhaadhiciyo wuxuu ama ha xumaado ama ha fiicnaado waa in cidi un danka leedahay misaal basiidaan idin siinaya maalan augustii dhaweyd 11keedii anigoo toronto jooga ayaan tv shiday CNN baa ka soo baxay CNN markaa nin baa la wareysanayaa ninka la wareysanaya wuxuu leeyahay qaanuun baan raadinayaa ah in la sameeyo adduunku gaar ahaan United Statesku Mareykanku inuu ictiraafo maalinta nigiska buu leeyahay nigiska soo ma taqaanin underwearka buu maalin rabaa in la siiyo waa kuwan maalinta AIDS-ka maalinta waxaa maalinta soo ma maqashaan wuxuu rabaa maalintii nigiska in la sameeyo signatures buu ururinayaa 50,000 buu marinayaa 50,000 oo signature buu marinayaa saxiix ayuu soo ururiyay wuxuu rabaa inuu badiyo saxiixyadaasoo 1 milyan gaadhsiiyo si uu case-ku u noqon karo case isturtiingahoodii yani congresska la hordhigi karo oo markaasi looga doodo maalinta nigiska waxay weydiiyeen maalinta nigiska maxaa laga faa'iidayaa bay yidhaahdeen wuxuu yidhi markii aan daraasayey waxaan arkay buu yidhi suuq dhaqaalo fiican inuu ku jiro waxaan dareemay buu yidhi nigsaanta lagu xidho maraykankaan xisaabiyey waa $13 billion baa ku baxa buu yidhi haddaan maalinta nigiska sii sameeyey buu leeyahay markaa waxay noqonaysaa waa market aad u cajiiba markaa marketkaasaa rabaa inaan qabsado buu leeyahay si uu marketkaa u qabsado ayuu ummadda dhan wuxuu rabaa inuu u sameeyo maalintii nigiska maxaan markaa maalinta nigiska tusaale ugu soo qaatay yani waxa weeyaan waxaan laynoo sheegaya tirada badan leh nolosha macno kama leh inagunbaa wax waynu aragnay waxa magac lagu tiriyey waxaa laga yaabaa maanta haddii aan idin weydiiyo nebi muxamed imise caruuruu dhalay inay adkaan doonto cidda si fiican uga jawaabi doon laakiin haddaan idin weydiiyo David Beckham imisuu dhalay waa la wada garan karaa waayo Beckham iyo Maradona iyo kan iyo hebelada tani waa laynoo buunbuuniyey dabeetana wax weyn oo cajaba baa laga dhigay laakiin really haddaad caqli fiican ku eegto maxay qabtaan caag baa loo neefeeyaa dabeetana area la yidhaahdaa 2 birood dhex geliya soo intaa maaha intaasi nolosha bini aadamka maxay ku kordhisaa caag haddii la neefeeyo oo dabeetana 2 birood laga dhex saaro waxba kuma kordhiso laakiin waxaa loogu talagalay in qaabkan laynoo fakarsiiyo waxaa la yidhi ninka kani caaggaa la neefeeyey 2 birood la dhexeeyo $40 milyan oo dhaale ku qaata $40 million ayuu ku qaataa waxaa jira Western Europe dhalinyarada waxaa loogu talagalay in la mashquuliyo qofku markuu dhalinyaro yahay in la mashquuliyo qaab waxbarasho dheer in la geliyo 12 sanadooda oo asliyan ku salaysan in da'da intuu ka yariyo qofka si loo hay karo aanu suuqa shaqada iyo waxa si u soo gelin mar labaad in qofkan la mashquuliyo oo laga mashquuliyo qadaayaadka bulshada مثلا Yurub lixdanada wixii ka horeeyay dhalinyaradu khatar bay ku hayeen siyaasadka Yurub waxa bedeli jiray lixdanadii wixii ka horeeyay ardada jaamacaadka ku jira France oo kale 1968 kii ardadii jaamacaadku inqilaabadiyadii waxay sameeyeen waxay qarka u gaadhay in mar labaad thawra Faransiya dib loo inqilaabo waxay ahaan jireen shuuciyiintii hore dhulkii ugu tirada badnaa ay ka faa'iideysteen dhalinyaro joogay jaamacaadka iyo wixii ka hooseeyay laakiin dadkaasi si suuqa siyaasadda looga saaro waxa loo fakiray suuq cusub in loo sameeyo
sport and music baa la geliyey qofka dhalinyarada waxa la yiraahdo waa caalamkan siyaasadani waxaan ka bax caalam kale aad ugu leedahay caalamka aad leedahay waa maxay ama waa music damdamta dhageyso iyo dadka qaylinaya oo waliba waxay ku qaylinayaan xataa aanu jirin literature-ka hadii la eego dadka qaylinaya oo dhamay cabaadaya wax ay ku hadlayaan ma jiro waa uun iska cabaad lagu daray music lagu daray iyo kuwa la yiri kubadda area kubaddu waxa laga yaabaa inaad isleedahay war Mustafa maanta ma sportigu doonayeen wax ka sheego ama waa ceebayo qofka bini aadamka ah inuu jirkiisa kala bixiyo oo dhisawa wax fiican caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo waa wax fiican waagay kubaddu wax caafimaad u loo adeegsada ahayd hobby bay ahayd hobbyga maxaa la yiraahdaa qofku shaqo haystay waxana hobby ahaan buu sameyn jiray ma jirin nin yiraahdaa inuu kubad baan ka shaqeeyayo intaan soo kalaho lacag lagu siiyaa ma jirin qofku shaqo kale uu ka lihi jiray dhakhtar buu ahaa askari buu ahaa booliis buu ahaa siyaasi buu ahaa shaqo kale uu haystay kubadna waa ciyaari jiray kubaddu markaa waxa iska ahayd nooc entertainment yar oo fudud iyo inta ugu badan la wuxuu qofka bini'aadamka isku dayo jirkiisa inuu ku kala bixiyo laakiin ka waa laga saaro waxa la geeyo suuqii dhaqaalaha waxa laga dhigay shirkadka ugu waaweyn ee maalqabeena waxa laga dhigay inamada yaryar ka dhex boodbooda in mid waliba 40 milyan qaato waxa laga dhigay in dadkoo dhan usbuuc dhan dunida dhamay TV-yada hor fadhida la yiraahdo koobkii dunida la ciyaaraya koobka dunida muxuu yahay usbuuc kale in hor fadhiya la yiraahdo koobkii Yurub la ciyaaraya dadkii oo dhan kooba bay daawanayaan waayo waa model isu loo sameeyo la rabo dadku inay noocan ugu daydaan waxa laga yaabaa adigu maanta inaad adna isweydiinin subaxii marka iskuulka isugu timaadaan waxaad tirahdaan xalay yaa badiyay liiga ka sareeya toddobaadkan Manchester United baa ugu sareysa iyaba lagu muransay Real Madrid baa wada maxaa waxaan keenay waxa weeyaan iyadoo ay luntay huwiyadii ama identity-ga qofku waxaynu u baahanay inagu inaan isweydiino identity-ga kumaatay man ana inaad marka hore isweydiiso kumaanahay maxaan u noolahay maxaan rabaa inaan dunidan ka qabto maxaan u joogaa haddaad taa garato waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa yaa model ku ah yaa tusaale ku ah oo aad ku dayanaysaa waxaynu u baahanay inaynu garanno inaad tahay qof muslima oo ilaahay rumeeyay subxaanahu wa tacaala waxaad garanaysaa noloshu inaad waqti yar joogayso waqtiga yar aad joogtaan inuu yahay waqti lagu itixaamayo lagu talagalay inaad ka faa'iideysato waxaad ogtahay in aad dhiman doonto dabeetana lagu soo bixinayo aakhira la imanayo waqtiga yar aad joogtay wixii aad qabatay in lagu xisaabin doono yaa model ku ah marka yaa tusaale ku ah ilaahay baa quraanka inoogu tilmaamaya cidda tusaale inoo ah إلهي سبحانه وتعالى أنتو أنبياء كسوا والرمي بوحليهي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده كوا سبا إلهي سبحانه وتعالى وكوي ألا هنونيه فبهداه مقتده هنون كودا كودا يبا إلهي سبحانه وتعالى هنون كودا يعني السلوك كودا نقن كودا qaabkay u fakarayeen qaabkay u cibaadeysanayeen qaabkay nolosha u arkayeen siday u fakarayeen iyaga kaga daydaba ilaahay quraan uu soo dejin kari lahaa sidiisa u qoran oo dadka la yiraahdo akhristo faahfaahsan laakiin ilaahay wuxuu soo diray waxyi kasto uu soo dejiyay rasuul baa la soo raaciyay rasuushu maxay qabanayeen waxay qabanayeen inay noqdaan tusaalaha xayiga tusaalaha nool ee loogu talagalay bini aadamku inuu ku daydo si uu u raaco waxay ahayn tusaale la rabo in dadka la tusiyo koo waxa la faray inuu yahay wax la samayn karo fi maqdur albashar bini aadamka awoodiisa wax kamid ah inuu yahay inuu طريقه saxa yahay qaab nololeedka ugu fiican inuu yahay cidii tilmaami lahayd ولذلك waxaaynu ku celcelinayna leenahay waa inaynu si fiican u daraasayna u garanaa cidaynu ku dayan lahayn cidaynu ku dayanayna waxa weeyaan bini aadamkii ilaahay abuuray oo dhan kuwii ugu fiicnaa waxa alla dad abuuray
waxa ugu fiican oo ummad walba kii ugu fiicnaa ee ilaahay ka doortay waa nebi ama rasuul ummad kasta kii ugu fiicnaa ee ilaahay ka doortay waa nebi ama waa rasuul nebiga iyo rasuulka waxaa loogu talagalay inuu model u noqdo ama shaygii bini aadamka oo dhami uu ku dayanaya inuu noqdo waxaan ku dayanaynaa min bacdi dalik kuwa iyagu rabeeyeen oo kobciyeen haddaad fikraddaasi qaadato waxa aad dareemaysaa inaad adigu dunida ustaad markaasi u tahay qofkaan ilaahay garanayni waa wax ma garato qofkaan ilaahay garanayn subxaana wa tacaala waa wax ma garato afaman yaclamu annama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma cidda alle garanaysa maalan aqoontu maxaa lagu qiimeeyaa aqoonta waxay ka warramayso iyo waxay tarto soocaykaa maaha inta ugu badan le dadku aqoonta aqoonnimo uma bartaan laakiin marketka waxay ka goysaa loo bartaa haddii iminka laydin yidhaahdo computer science baa markaad ka soo baxdo lagugu qaadanayaa 30,000 40,000 oo karawne bishii wada computer science baynu gelaynaa laakiin hadduu marketku isbedelo la yidhaaha saxaafadda ka qaalisan saxaafadaad u guuraysaa saxaafadnimadu iyo kombiyuutarnimadu ma ahayn fiicnaanta laakiin marketka waxay ka jaraysay baa ahaa aqoonta alle la bartaa marketka waxay ka goynaysaa iyada ugu qaalisan oo ay jannay goysaa yani life spankaaga markaad eegto nolosha intaad noolaanaysaa atwaar baad soo maraysaa waqti aad dhabarka aabbaha iyo hooyada ku jirtay waqti aad caloosha hooyada ku jirtay waqti aad dunida korkeeda sarreyd waqti aad xabaal ku jirtay kadibna waad ka soo baxaysaa waxaad ku dambaynaysaa janno ama naar noloshaasoo dhan marka la isku daro diintu intay ka tartaa inta ugu qaalisan bay ka tartaa hadday tahay noloshan aad ku nooshahay si sawiyo toosan inaad u noolaato iyada tilmaamta hadday taa aakhiro tahayna waxa ugu qaalisan iyada keenta daatada ay ka warramaysaa maalan inaad cilmi quraanjo barato quraanjada cilmi ku saabsan iyo inaad cilmi bini aadam ku saabsan barato waxa qaalisan cilmi bini aadam ku saabsan waxa kaloo la mid ah cilmi allihii dunida abuurayba ku saabsan inaad barataa wuxuu ka qaalisan yahay makhluuqaadka cilmiga ku saabsan sida daraaddeed waxaynu u baahannahay inaydan isu arag minority yaryaroo masaakiina oo dadkii kale uu ka sarreeyo oo markaa la khajila waxaan kaaga digayaa inaad xijaabka la khajisho ama salaada aad la dhuumato markaad iskuulka sidaada ku tuko waxaad leedahay talo xagaad ku tukataa markaasaa laga yaabaa inaad wareegto mid yidhaha musqusha agteeda aan ku tukanno jarajarada hoosteeda aan ku tukanno meel aan ili kaa qaban baad daydayaysaa sababtu waa maxay waxaan baad la khajilaysaa kula yeeliita waxay ahayd inaad rumaysato adigu inaad the right way taagantahay safkii sax ahaa inaad taagantahay iyaguna kii qaldana inay taagan yihiin inaad isu dhigto inaad model noqoto dadka inta kale ay ku dayato ma ahayn inuu iskuulka model ka noqdo inanta timaha kala jeexda ee naasaha qaawisa ee marada yara gaaban seeta waxay taasi qof laga yaqyaqsoodo inay noqoto inaad adigu maradaada iyo asturkaaga tusiso inaad tahay the right person dhaqan ahaan aqoon ahaan waxa la baranayo wax kastaba inaad adigu tahay the right person idan ku dayashadu waxay ka bilaabmaysaa inaan marka hore inhizaam nafsi inugu dhicin inaynan jabin inferiority complex inaad marka hore adigu qaadin cuqdad nafsi inaanay kugu dhacin aan soran xijaabka waxa laga yaabaa markaad masaajidka imanaysana inaad jiqis ka soo siiso iskuulka markaad tagaysana mid la yara modify gareeyo dhanna surwaalka yara ah dhanna fanaanad yar ka ah meelahana aad masar yar ku duubto waa modification xijaab aad modify garaysay maya ha modify garaynin sidii ugu weeye u qaado aragna you are the superior adaa ugu sarreeya dadka waayo dariiqii ilaahay jeexay baa taagantay the right way baa taagantay mithaal basiitan ku siinaya saxaabadii nabi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi duniday furteen lisboonadan iyo viyaana iyo belgrad iyo mooska iyo dhulkan oo dhan dacladeeday wada yimaadeen muslimiintu ilaa iyo laga gaadhayo china iyo indonesiya iyo waxa la mida dhulal badanoo dhulalkaa ka mida kumay furanin dagaal dhulal badanoo ka mida waxay ku furteen dhaqan iyo akhlaaq iyo dadnimo iyo macaamil bay kula furteen waxay ku furteen qaabkay u noolaayeen iyo siday u fakerayeen iyo waxay basharka u keeneen
waxay ku furteenoo kaaga filan rustam markii ay dagaalamayeen muslimiintii iyo saxaabadii rustam oo ah janankii hogaaminayay ciidamadii Persia Iran ciidamadeedii ayaa waxaa la isku galay qaadisiya meel ku taala haatan wadankan Ciraaq loo yaqaano waa intaan madaayinna Ciraaq bay ka tirsantaa rajaynaya la furanin waxay dagaalkii markuu muddo socday codsadeen nimankii gaaleed bal muslimiintu inay cid soo diraan hal wada hadlee Sa'd ibn Waqqas saxaabigii la oran jiray wuxuu u diray saxaabi la yiraahdo Ribci ibn Amir Ribci waxa loo diray inuu wada hadal la soo sameeyo janankii ama boqorkii watay ciidamada gaaleed dabeetana wuxuu u yimi isagoo faraskiisa yaraa wata oo hubkiisii xidhan ayuu meeshii yimi boqorku wuxuu ku tala galay ninka kan inuu nafsad ahaan jabiyo dabeetana waxa la dhigay red carpet wada taqaan Soomaha madaxdu markay dawladda ka soo degayso kacas la dhigo Sooma taqaanin ay soo dul socdaan red carpet iskaasa meel walba la dhigay dabeetana sariir buu boqorkii dhigtay wada dahab iyo waxaasi ka samaysan si uu halka ugu qaabilo ninkan muslimiinta u imanaya ninka muslimkii waa nin dagaal ka soo baxay faras yar iska wata oo 4-5 bilood dagaal ku soo jiray oo rafaad baad ka muuqda nin dagaalansan oo soo socday waxay yiraahdeen boqorka looma tago adigoo hubka sitee hubka dhig wuxuu ku yidhi anigu idiin ma iman idinka ay yeedhay hubkayga ma dhigay anigoo waxayga sita haddaan rabtaan inaan u tago waa u tagay haddii kalena waa iska noqonaya boqorkii baa loo tago waxaa la yidhi boqorow ninkii wuxuu diiday inuu hubka dhigo yani waa aragteenoo dee madaxda hub loolama galo waayo dadka kanimaha dad ilaahay aaminsan oo iskhiyaamaynayaan laakiin ninka muslimka ay qowlkiisu ku dhaqma saasi daraadeed intuu qowl sameeyo qadri kama dambayso wax ma khiyaameeyo haddana wuxuu hubkayga dhigi maayo anigoo hubkayga sita haddii loo baahan yahay waan u tagayaa boqorka waxaa la yidhi boqorow ninkii hubkii diid inuu dhigo soo daayaa la yidhi maca hubkiisa faraskiisii yaraa buu soo duleriyey baa la yidhi qadiifadihii red carpetka ahaa boqorka agtiisa markuu marayay baa la yidhi intuu faraskii ka daadegay ayuu barkimooyinkii waaweynaa meesha la dhigo mid ku xidhay bay yidhahdaan culimada taariikh mid ka mid ah barkimo hogaankii yaraa ee faraska ugu xidhay dabeetana wuxuu yimi boqorkii markaa su'aal buu weydiiyey maxaa idin soo saaraya wuxuu ka fakarayaa dadkan magaaja wadankoodii ka keentay ma waxan baa keenay haddii markaa ay tahay gaajo iyo baahi uun waxan wada dee waxbaa la idin siinaya iska noqda baa la rabaa in la yidhaahdo maxaa idin soo saaray baa la yidhi wuxuu ugu jawaabay markaasi ilaahay baa na soo bixiyey waxaana naloo soo bixiyey inaanu dadka ka saarno dulmiga diimaha aanu u saarno cadaaladda islaamka inaanu ka saarno cidhiidhiga adduun waanu u saarno ballaadhkeeda isagaa cidhiidhi dad ka saaraya min dayqi dunya ila sicatiha cidhiidhi adduun buu ka saarayaa ballaadh buu geynayaa ninka kani muxuu rumaysan yihi meeshaan uga socda baytulqasiidku waxa weeyaan ninkani wuxuu rumaysnaa inuu isagu yahay ustaadkii dunida loo soo diray professorkii loogu talagalay inuu caalamka wax baro muxuu barayaa waxyu samaa warkii alluu sidaa ninka ilaahay warkiisa sidaana cid kasta isagaa ka aqoon badan waayo wuxuu sidaa aqoontii ugu sarraysay sidaa awgeed buu wuxuu u soo bandhigayaa isagoo kalsooni qaba ayuu wixii uu rumaysnaa soo bandhigayaa adigana waxa laga yaabaa adigoo muslima oo islaamnimo rumaysan oo caynkan inaad la dhuumato inaad isku daydo inaan dadku ku ogaanin inaad muslim tahay waa wax faal xun waxaan leenahay marka waa inaad garataa shakhsiyadaada kumaad tahay waa inaad garataa adigu muslim baad tahay kuwa kalena waa gaalo taa macnaheedu waxa weeyaan adigaa ku taagan dariiqii saxa ahaa iyana waxay taagan yihiin dariiqii qaldanaa taa macnaheedu waxa weeyaan adaa macallinkii la rabay inuu dadka wax u sheego wax tilmaamo iyana waa ardadii la rabay inay wax bartaan taa macnaheedu waxa weeyaan adaa ah marada aad sidataa ah maradii loogu talagalay inay bashariyadu ku dayato adaa ah moodhalkii la rabay in la buunbuuniyo iyaguna way qaawan yihiin waa meel laga naxaabay joogaan waa hilib wadhan
meel aan looga naxaabay joogaan saa daraaddeed aday ahayd inaad isu dareento inaad tahay qudwadii ama ciddii bashariyada hogaaminaysay horkacaysay ee ariiqa sawaabka rabtay inay gaadhsiiso waxaa aada u foolxun markaa qofkii halkaa laga rabay inuu isagu intuu cuqdad qaado uu dambeeyo inuu isagu noqdo qof ka cabsada wixiisii inuu soo bandhigo bilaahi calaykum waxaan idin weydiinayaa haddii inanta isqaawisaa isqaawin ku faanaysa adigu maxaad mare ugu faani kari weyde yani say macquul u tahay hadduu kani gaalnimo ku faanaya ilaahay ma rumaysnay ilaahay baan rumaysanay si aad ugu faani kari weydaa ahlu naar baan ahay hadduu kuugu faanaya ahlu jannaan ahay si aad ugu faani kari weyde geedi naar kusii guuraya inaad daba guurtaa miyay fiican tahay adoo janno arkaya geedi naareed dadaad aragto hayaana oo guuraya oo naar u sii raran inaad ka daba guurtaa miyay fiican tahay adigoo awoodi karaya inaad janno u guurto waxaan kelmaddeeda kusoo koobaya waxa weeyaan laba hal baa laydinka baahan yahay inaad garato waxaad tahay iyo waxaad rumaysantay oo ah inaad garato inaad muslim tahay muslimnimada macnaheeduna inuu yahay qof raacay risaaladii ama hanuunkii ugu dambeeyay ilaahay xaggiisa ka yimaada ama hanuunkii nebiyaba loo soo dhibay dhammaantii qof haysta inaad garato markaa inay adiga dushaada saarantay dunidan inaad badbaadiso inaad garato inaad adigu markaa dunida model u noqoto inaad hogaankii lagu dayan lahaa inaad noqoto inaad u fahamto dadka kani maxaad ka qaadan kartaa maxaanad se ka qaadan karin masaladaasaan dib ugu noqonayaa qofka muslimka ee modelka ahi dariiqa aakhiro loo maro isagaa haya adduunka ka loo marana isagaa haya laakiin aqoonta maadiga ee kale ee ka timaada bashariyada ama bini aadamka taariikh nololeedkiisii soo jireenka ahaa wixii ka ururay ee cilmiya مثلا ama biology ha noqdo ama chemistry ha noqdo ama computer ha noqdo waa wax bini aadamku uu kala dhaxlay oo ka soo ururay taas cidi kaama xigto qofka muslimkii meeshuu ka helaba isaga xaq u leh waad ka qaadanaysaa idan professorka ama macallinku waxa ku saabsiisan culumta la baranayo waad ka qaadan ee waxtarka leh ama waxa ku saabsiisan dhaqanka culture-ka diinta aragtida nolosha saa nolosha loo qiimeynayo view-ga nolosha ka yeelanayso adiga macallin inaad u noqoto lagaaga baahayo way adaa tii sax ahayd haya adaa tii sax ahayd haya marka adaa lagaaga baahayana dunida macallin ha noqotid laakiin ceebteenni waxa weeyaan teenniina garanba mayno taynu rabnay inaynu macallin ku noqonno inaan garanaynin taasaa waxay keentay inaad noqoto weel madhan oo wixii lagu shubaba qaadan kara waxaan kusoo koobayaa rusushu ama nebiyadu waa tusaalayaashii dhabka ahaa ee loogu talagalay qofka bini aadamkii nolosha dhammaanteed inuu kaga daydo hadday qiyaadiya maamul tahay qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa rusul madax iyo siyaasiyiin noqotay nebi daawuud nebi sulaymaan waxay ahayd rusul siyaasiyiina oo madaxa oo ummad hogaamiso dowlada xukuntay hadday tahay jihaad iyo dagaalan iyo kan qur-aanku wuxuu ka waramayaa rusul hadday tahay waxay iminka kuu sheegayaan xornimo la raadiyo iyo dad la xoreeyo ummad xuquuqdeeda loo raadiyo rusul baa ilaahay qur-aanka kaga waramaya raadinaysay nebi muuse waxaa ilaahay ka waramaya wuxuu ka hor yimi fircawn oo dad kale dictatornimo u sheeganaya le anaa rabbi idiin ah ilaahayna uu soo diray inuu reer banu israa'iil ka xoreeyo an irsil maciya bani israa'iil haddaad u baahan tahay qof dhibaatoobay oo mashkilada haysato iyo suu noolan laa ilaahay rusul buu tusaale ka dhigay nebi ayuub baa la tilmaamay oo 18 sano jiifay oo xanuunsanayay oo dhib badani heshay haddaad cidhiidhi iyo mashkiladii cid ay qabsatay iyo qaabka loo noolaaday rusul baa ilaahay tilmaamaya nebi yuunus oo xuutadi liqday
وكلون علوشي كوغالي وهذا كسو بحي وإلهي سبحانه وتعالى وقرقاري هذا ضربته عدة قال يهنو ومدو دي ودقال لانتي وحريسي الرسول با إلهي كورمية نبي داود جالوت لا دغالمay oo umada dhan ka xoreeyay niman gaalaha yaani nolosha dhan kasto aad ka eegto waxaad helaysaa rasuul ah kii lagu dayanayay nolosha dhan kasto aad ka eegto waxaad helaysaa rasuul ah ilaahay quraanka uu kaga waramayo oo cidii lagu dayanayay ee nolosha tan hogaamisay sida awgeed أي إلهي سبحانه وتعالى النبي محمد وحقار وقصة المامة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نبي محمد وحيد كسو جنب إلهي إليه كضي شفيعا عدي الله سبحانه وتعالى يا مالتا قيامها رجيني سيد ضمع كجتشره يا إلهي حسيس سبحانه وتعالى waxaan ku soo koobaya oo ilaahay inooga digaya wala tattabic ahwaa'ahum amma jaaka min alhaq ilaahay wuxuu inooga digayaa dadka gaaleed hawadooda inaynu raacno inagoo ka tegayna xaqii alla soo dejiyay subxaanahu wa tacaala waxaan ku soo koobaya marka oo warkaygu dhamiyahay idinka tusaalihii la rabay in lagu daydo idinku cid idinka liidata ku dayanina cid idinka liidata ku dayanina hal idinkaga daydo laakiin islaamnimo dhaba ma aha in marada qura la idinkaga daydo waa in dhaqan oo dhan la idinkaga dayda dad run sheegaya oo run ku dhaqmaya oo deeq iyo wax bixin leh oo ballan oofinaya oo homeworkiisa ka shaqaynaya oo macallinkiisa ixtiraamaya oo dariskiisa dhiganaya oo wixii loo diro si toosan u qabanaya oo qumman in lagaaga daydaba muhiima markaas tusaale dhabta noqonaysa laakiin haddaad xaggana mara ka qaadato kalaaskana aad jirtid macallinkana been u sheegtid saaxiibkaana wixiisa aad ka qaadatid kana aad dulmidid markaa tusaale noqon maysid tusaale waxaa tahay waxa meesha lagu hayo marka aad ka tahay qofkii laga rabay hadday wax barashatay hadday dhaqantay hadday ballan tahay hadday hadaltay iyo waa run la sheegayo qof street forward markaad noqoto qof toos u socda modelka la rabay islaamigiina waa ka walidaalka baa ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka wuxuu inooga digayaa إننا أردنا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إننا بارك سامبل كان قرن دين وحنا أدو قاعد بسقى إننا نقول دتك الدين تكعلنا ونرى سوق لنا وهي الدين تدينا جينا فعوا إذا وردك إذا فاعل سوق على سيسور تقلطي وإن dadka diinta ay nagu yeedhayna noqoto dhaqankeenu inuu dadka dacwo gaarsiinayo waa laga yaabaa afafku inay nagu adag yihiin inaynan si fiican bay isu fahmin laakiin culture-kaaga iyo dhaqankaaga yeedhaya haddaad adigu qof quman tahay meeshaad ka shaqayso meeshaad wax ka baranayso meesha aad joogto cidda aad la saaxiibka tahay markaad si quman ula dhaqanto qumanaantaadan baa dacwada sheegaysa warkaale ilaahay rumeeya هنقولنا مركزي دين تكوي دتك كعليا أو بارك سامبلس هنقولنا تصالح أو دتك دين تكعليا هنقولنا أو هنقطان تصالح في عن أو دتك دين توسوها وهنقطان دتك مجتمع كني ويد وناتشي نرويج صاع كما ويهوي ولا ينسيه وعنتنا ولا ينسيه وحبرشنا ولا يدين وقلاضي أنت يدون طبعا نقطه إذا وين نكابل قدنا إننا وحي ونكسنين نسيدنين نسينه دين بين نسيدني إسلامني بين نسيدني نقف في عم بين نسيدني وحي ونكسنين نسيدني إننا وين نسينا ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله
وين ندك يوم هذا علنا لكن ما هذا علكم ما هاين إنه إننا برا سيدا سيستم كود اللي بريو سيدا الله حظه سيدا بين الله شاقه سيدا وحليشوا إدارية كامها وين إنه أقدم كود هانونين كرنا يوم ما أنت أقدم كود يوتاقلاي سيجاري يا خمر يا سوق يا بلية باسيو وين سكول كشان هبلاد ما شان ويلو مسلمة أي دقيين وين سكول كنا كيس بدلا وين سكول كان نقطة مورد الله يرحمه مركزي وحلو بهين دتك الجنبي مسلمين تا سكول هذا لقوا بديو الله قيبيه وين نقطة ويا مورد سكول كوحترية لكن هذا نقطة أنت مالك أورورتان سكول كشوكتان إنه أقام تكهو سيء سكول هذا كله oo dhaqanka ka sii liito oo waxbarashada ka sii liito oo damiinimada ka sii liito meel kasta oo si fool xumaataan marka islaamka ceebaynaysa weey waxa la rabay meesha shan ku joogtaan ama 10 ku joogtaan inaan noqotaan 10 example oo dadka kale raadiyaan 10 kan oo kale in la helo iskuulada kale inay u baahdaan markaasi waxaan u baahanay 10 arday oo muslima in iskuulka lagu soo daro si iskuulku uu hagaagi karo oo toosi karo waxaynu markaa isugu nimi waxa weeyaan inaynu modelkaasi muujin karno ku dayashadaasi inaynu muujin karno in maanta laga bilaabo garataan inay idinku tihiin dadkii lagu dayan lahaa inventionka dadka u keeni lahaydeen idinka la idinka rabaa markaa maanta laga bilaabo idinka dadkii dadku ku dayan lahaa marka idinka la idin rabaa inay noqotaan dad mujtamaca hogaamin kara oo waxa ay xambaarsan yihiin u gudbin kara oo adoon af uga gudbin dhaqankaaga iyo akhlaaqdaada iyo qaab nololeedkaaga waa inuu gudbiyaa sharkoodana waa inaad isku daydaa inaad iska cadaadiso khayrkaaguna waa inaad isku daydaa inuu dadka wada gaadhi karo markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ee dhabta ahaa ee ilaahay iyo rasuulkiisuba ay jeclaayeen markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ee badbaadin lahaa ummadda tan dariiqa saxa u tilmaami lahaa markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ahaa ee safiirka ka noqon lahaa ummadda muslimiinta kale yani inaad safiir ka noqoto ummadda muslimiinta kale baa loo baahan yahay ama maanta in badan oo muslimiinta ka mid ah qaabkay uga dhaqmaan halka kane waa very bad examples bay ka yihiin muslimkii ka dambeeyay oo dhan iyo diinta ay xambaarsanaayeen iyo culture-koodii iyo dhaqankoodii iyo aragtidoodiiba very bad examples bay ka yihiin waxaan ku soo koobayaa markaa dad ba idinkaa u fiican ha jabina uun يعني ضد إذن كاو في عن أنت مسلم تين لكن عقدتنا إن فندر ربان هي كم بان هي ماينورة تبان هي والله حقر هي والله يصيد كبح إن فندر رات هي مسلم بات هي هجامية بات هي وحي جسم هذا السيد بات هي قف كيل الربيع دتكو إنه كود إذا بات هي دات سوحل الربيع هذا كارد عدله هذا ندي هذا بكارد عدل سنة دتك ما دارين كرتين لكن هذا كان ربعين كارد عدل إن الطهي إن فندر مسلمة أو كيسي دي وحي عرك لقى صادري ابن آدم بينه كهنون الله وطلق علي كيسي دي بطهي then you should be a good example. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى كاول مريش كان محاضرة يقيم المسلمين إنك أنا موافق كل حقنا مالي. وقتي صلاة على العصر في وقت المحاضرة وصاغ اللي ذكرته راح نسوق علينا سؤالها أنت اسكنوا على مكان سرعنا إن شاء الله. بس أنا كار بلغ عضني محمد سؤالي يرضوا كل هذا بالغسل أي هذا يكسر درجة. سكوا دارو مغلية مالية. waxay leeyihiin saddex su'aalood oo kubadda ku saabsan laba waa isku mid waxayna leedahay nin dhalinyaro haddii uu koox u ciyaaro oo dee uu noqdo xidig sidii David Beckhamkii laga sheekeynayo oo kale ma dembi baa ku jira waa tan labaad su'aasha labaadna waxay leedahay waa islaayadii waa banoonigii laakiin gabdhaha muslimiinta inay banooniga ciyaaraan lafteeda ma dembi baa ku jira waxaa runtii u baahan inuu qofka muslimkii marka hore ogaado roolkaad nolosha ku leedahay waa maxay ma inaad cayaartaabaa dunida u timid
يعني محاد النوشهاي قفكو هدو قرن وايو وحو النول يهي دن واحد قبطة قرن ميسي الشيخ زنداني اللي عبد المجيد الزنداني حفظه الله يا مال ما كم ده يسوي الله هذا يعني بروفيسور انجليزي وعانه ايوه ويدي ورشو محي ترتابو كيوري مركز سوري شو وحن بي قبطا سام بي قبطا وحي شرح هيومن فيسيولوجي وحي لو شرح جرام هيومن اناتومي ايو شرح مركز هذا انا عضو كلا ويدي هل كان محي قبطا ودو محوطره كان محوطره مركي دنبو وحو علم كان علم الوظائف الاعضاء الله يرهدايو و شرح وحو لبا وحن بي قبطان سام بي تران وحو ويدي waxaad ii sheegtay jidhkaaga shay kasta oo ka midi waxa uu taro ma shaynimadiisu qiimo ku leeyahay mise jidhku wuxuu taraabaan ku weydiinayaa buu yidhi teetana wuxuu yidhi hadday keliya meel taallo waxba faa'iido ma laha buu yidhi waxay waxtar tahay markay dee jidh ku jirto oo jidhkay waxu taraysaan ku arkaya waxaan ku weydiiyey buu ku yidhi qofka oo dhan markaad jidhkiisa iyo ishiisa iyo wixiisiiba isku darto waa maxay isaga waxa loogu talagalay sheegtay ishii wixii loogu talagalay dhegtii sheegtay lugtii sheegtay qofka isku dhan maxaa loogu talagalay iska aamusa wuxuu yidhi taasi waa falsafad wuxuu waxaan ku weydiiyo kabtaadu maxay kuu dartaa kabtii buu sharxay wuxuu yidhi waxan bay qabataa dhibta iga ilaalisaa saatan baan u socdaa caynkan bay qabataa kabtii buu sharxay markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiiyo ma waxaad leedahay iminka kabtaadaa kaa qiimo badan oo kabtaadu waxay tartana waa la garanaya adigu waxaad tartana cidi garan mayso yani waxa lagu abuuray adiga cidi garan maysa miya kabtaadan waxa loo sameeyeyna waad garanaysaa miya yani qofka haddii hadafka nolosha uu ka lumo waxa ka lumaya wuxuu qaban lahaayoo dhan noloshoo dhan baa dhinac ka rarmaysa markaa يعني waxay isweydiinta le war maxaad u nooshay inaad isweydiiso waqti yar baad horta haysataa 60 sano 70 sano meelaha kan laga yaabo 15 ka hore inaad caruur tahay waa wax kontineeyo sano aad haysataa this 50 years nolosha maxaad ka qaban kartaa inaad isweydiiso kontonkaaga sano ma waxaad doonaysaa inaad boodboodo markaad kubadu u cayaarto u noolaato kubadda waxaan ku ogolay inay noqoto waxaad jidhkaaga ku kala bixiso oo aad exercise ka dhigato laakiin maaha wax loo noolaado in kubad la cayaara laba ma kala fahmaysaa maalan maamaad ingiriisku maxay odhan jirtay waxa wax loo cunaa maxay in la noolaado laakiin looma noolaado in maxay in wax la cuno socankaa maaha cunadu faa'iiday leedahay waxaad wax u cunaysaa inaad ku noolaato laakiin ka warran qofka u nool inuu wax cuno uun noloshiisaba ka dhigtaa inuu wax daaqo oo wax cuno uunoo fadhiyo nolol maaha dee taasi waxaa wax loo cayaaraa inaad jidhkaaga dhisto laakiin haddaad u noolaato inaad cayaarto ka war haddaad u noolaato un inaad cayaarto oo kubada erido cayaartu hadday tahay taa aad isku kala bixbixinaysa jidhkaaga ku dhisanayso waa roonta ama inaad noloshaada ka dhigta cayaar kugulama talinayo wallahu aclam جزاك الله خير شيخ سؤاله way badan yihiin laakiin waan soo yareynaa laba su'aalood oo isku dhaw waxay leeyihiin qof wuxuu leeyahay maadaama sheekhu yiri salaadii iyo meel qofku uu la dhumanaya markii uu tukanayo haddii aan sheekhu iska dhigto ama aan shaqeeyo laakiin salaadii aan meel qarsoon iskaga tukado maxaa dambi iga soo gaaraya tan labaad oo su'aalo isku dhaw gabadha muslimadda ay dhar ku dhagan inay xirato maxay diintu ka qabtaa salaadaas haddii aan marmar un tukado oo mar kale aan ka tago iyadana maxaa dembi hoon mudanaya salaada iyo muhiimadeeda waxaan u malaynaya in daris ku saabsan uu jiro marka salaada in marmar la tukadayo in laga tago waxaan uga tegayaa sheekh cali maadaama daris salaada uu kaga hadlayo cumuuman waxaad ogsoonaataa muslim macnihiisu waa maxay يا قرنا يا مسلم أسلم وهو قان سبي أما ويس ديبي مسلم معناه يدو حويا كي ليس ديبي كي هو قان سبي إن هذا ليس ديبتي محا عضينا إياه waxaa tidhi ilaahay halka ugu fiican baan ogolayn inaan maalintii 5 jeer dhulka dhigo
madaxaad dhulka dhigtaa salaada Soomaaliya madaxu waa halka aanad ogolayn in saxar yar taabto subaxii markaad soo baxayso waxaad ogoshay inaad maydho oo hagaajiso oo dhowr muraayadood isku eegto adigoo okay ah inaad dabad u baxdo laakiin salaada waxaad ogoshay halka inaad dhulka dhigto it means waxaad leedahay waxaan aqbalay inaan hogaansanaado qofka muslimkii markaasi waa inuu si dhab u hogaansanaada hadi waahida salaadaada hadaad meel qarsoon ku tukato horta salaada waa saxaysaa inta tukanaysana muslim khayr badan baad laakiin waxaan jeclay waxay tahay inaad adigu hormood noqoto midaal haddii guruubaatiin meel jooga oo macalinkiina ama iskuulka rectorka haystaa u tagtaan oo aad tidhaahdaan gruubkan muslimiin baanay meelaan ku tukanno nadiifaan u baahanay hana la siiyo waxay u badan tahay in laydin siin doono waxaa laga yaabaa inaanay qaanuunka ku jirin laakiin basharka iyo qaanuunku waa kala nooc rector walba iyo macallin kastaaba shakhsiyadiisu leeyahay dadnimadiisa waa laga yaabaa kani inuu kuu diido laakiin ka kale inuu idin ogolaado bay u badan tahay waxaa jira maanta iskuulla la meel lagu tukado ma dowladda tidhi ha la siiyo iskuulkaa meel lagaga tukado maya ardadii koowaad baa isxilqaamtay oo intay u tagtay rectorkoodii iyo macallimiintoodii si loojika ula hadashay oo ka dhaadhacsatay in la siiyo meel ay ku tukadaan oo macallin fiicanina wuu helay dadka dee badh baa isagoo aan muslim ahayn haddana dadnimadiisu fiicantay abi aalib muslimna ma ahayn nebi maxamed in la dhibana ma ogolayn muslimna ma ahayn yacni isagoo gaala dad baan haddana rabin bini aadamka in la dhibo rectorkaaga ama macallinkaagu inuu noocan noqdo waa suurtagal wuu siiyey ilaa maanta waa fatxi ay dadka muslimiinta heleen haddaad laakiin weligaa meel madow ku tukato kii kaa dambeeyun bay dhibtiina u taagan tahay laakiin tobankiina hore haddaa culays kaa qaadaan wuxuu noqonayaa albaab la baneeyey muslimiinta dambe waxay imanaysaa iyagoo iska meeshu u sallaxan tahay oo meel ku tukadaan helaya oo iskuulkan islaamkaba laga ogolayo laakiin si islaamka iskuulka looga aqbalo waa inaad noqotaa islaamku dayasho leh islaam iskuulka wax taraya waa inaad noqotaa islaam sigaar aan cabbin khamre cabbin boodboodin qaylin macallimiinta caayin ixtiraam xumayn dadku ay soo dhaweeyeen waa inaad noqotaa islaam moo dhalo macallimiintu ay soo dhaweystaan oo markuu macallinku arko kalaaskiisa dhowr muslim oo fadhiyo uu ku farxo waayo ungdamka kale waa rabshad iyo dhibaato miidhan laakiin ungdam muslim oo degan markuu helo macallinku waa bashar wuu kugu farxaya inuu ku arko inaad tahay qof quman oo toosan oo aan dhib lahayn inaad tahay marka waxaan leeyahay salaada dadka muslimiinta ha tukadaan ay ka tageen waxay ahmiyad leedahay sheekha ka warramay doona meesha madowna waa ku asaxaysa insha Allah adiga Allah waa ka aqbalaya laakiin waxa aan ka rabaa waxa weeyaan inaad inay salaadu ka asaxdo qura inaad raadisay inaad qudwo noqoto nabiguna wuxuu yiri man sanna sunnatan hasana fil islam fala wajru wajru man amila biha ninka tariiq wanaagsan dadka u jideeya buu nabigu yiri qofka tariiq suuban isagu jideeya ajarkiisina wuu leeyahay ciddii ku camal fashay ajarkooda oo dhanna waad leedahay haddaad adigu iskuulka u horseeday in masaajid yar laydsiiyo ama meel yaroo fiican oo lagu tukado waxa ay noqonaysaa inaad yeelato inta muslimee meeshaa salaadii u fududaatay ku tukatay oo dhan ajarkoodana inaad yeelato mid kalena waan kuu sheegayaa dadku isma leeka qoladiina hore xoogani haddaa wadada bannaysaan kuwa iska daciif ahayoo salaada qarqarsan lahaaba iyana soo dhiiranaya qaar u taagalaydeen baa imanayo markii hore aan qarsan kareynin laakiin markaa meel u salaxdeen oo hagaajiseen qaar badan oo markii hore la baqayay baa odhanaya wallahi de salaad waa iska fiicanta waa la ogolay iskuulka oo idinku dayan doona ta kale waxa aan rabaa inanta kale kalaaska kugula jirtee norwijiyada aan muslimka ahayn inay ku aragto adigoo tukanayaan rabaa waayo waa dacwa inay ku aragto adigoo tukanayaan rabaa inay curiosity ku qaado ay ku weydiisana maxaad la forforsanaysaa baan rabaa iyadu su'aasha ay ka bilaabanto nin muslim oo madow oo taksiila ah mareykanka ayaa wuxuu yidhi 6 bilood gudahood baan 58 qof islaamiyay buu yidhi taksiga gudihiisana shahaada ugu qabtay buu yidhi 58 qof ayaan taksiga gudihiisa shahaada ugu qabtay buu leeyahay maxaad ku samaysaa baa la yidhi dadka wuxuu yidhi airport kan dhigtaa taksiga marka dadku soo fuulun baan cajlad quraana ku ridaa kolay Yurub waliba Scandinavia ku wadad yara xidhan laakiin North America iyo meelahaas wadadaad isaga furfuran cajlad quraanan galiya buu yidhi waxay yiraahdaan waxaan fiican heesaya muxuu yahay markaasaan idhaahdaa buu yidhi waa the last word ka timaada xagga rabbi halkaasaan ka bilaabdaa buu yidhi sharaxayga waayo qofkan wuxuu raboon albaabka cid u furta
si uu ula hadlo uu diin ugula hadlo laakiin wuu ka cabsanay inuu marka horeba ku bilaabo diin ma haysataa iyo islaamka maxaad ka qabtaa iyo inuu halkaa ka bilaabo uu diidana cajiladan uma saaraa buu yidhi iyaga curious noqdo su-aashay weydiiya anna markaasaan ku bilaabaa buu leeyahy idan waxaan rabaa intaad salaada tukato inay inanta norwijiyadda ku aragto ku tiraahda maxaad samaynaysay oo dabeetana tidhaahdo tan salaad baa la yidhaahdaa oo ilaahay baa la isugu dhiibo waa caynkaasoo aad halkaa uga sharxdaa baan rabaa saa daraaddeed waxaan rabaa salaadaadu inay tusaale noqoto dadka diinta ugu yeedhaysa laakiin meel mid dadku tukato waa ka asaxaysa wallahu aclam insha allah annaga waqti ilaalinayna 3 su'aalood ama 4 su'aalood oo isku nooc ah hal su'aal insha allah taala aan kusoo koobayno ayaan kusoo gaabinaynaa su'aalihii marka haddii ay jiraan dad badan oo su'aalo soo qortay laakiin aan maqlin ha ka raalli aadaan waa inala daaheen waana soo badiyeen insha allah sheekhow waxaad ka warantaa baa layidhi dimuqraadiyadda waxaan aragnay dad badan oo dimuqraadiyadda ammaanaya islaamkana caayahaya horta farqiga u dhexeeya labadooda maxay yihiin waa tan labaad ee kelimadda masiix la yidhaahdo ma masiixu dijaal baa looga jeedaa mise masiixi ciise ah baa looga jeedaa aan sii raacina insha allah waxay leeyihiin oo kale waxaa jira qof saaxiibkay ah oo diinta caaya ilaahay caaya rasuulka caaya markaan kala hadlana hadal xun iigu jawaabo ma la dagaalami karaa arrintaas ma kula dagaalami karaa su-aasha ugu dambaysa oo aan muhiim laga maarmin iyadana waxay tahay wuxuu yidhi wiil baa wuxuu leeyahay iskoolka gabadh baan la fadhiistaa kursigaan isla fadhiisanaa aniguna ma rabee macalimadda ay ugu qasabta maxaan samayn karayaa sidaan ugu dambaabaya allah subxaana watacaala kalaba garan waayo wixii su-aale dimuqraadiya waa su-aalo runtii mid waliba deriskeeda isaga baaray democracy waa kelmad laba kelmadood oo af griiga ka kooban oo haddii af carabi lagu macneeyo la mid ah xukmu shacab af soomaalina mala shacab iyo xukumkaba desooda inuu isticmaalaa xukumkii shacabka ama xukumkii dadweynaha laakiin waxay yidhaahdaan professor muslim oo la yidhaahdo jacfar idriis ayaa wuxuu yidhaahdaa waa ereyga keliya ee magac aan xaqiiqo lahayn buu yidhaahdaa yacni waa magac aan xaqiiqo lahayn waayo dunida lama arag buu yidhi meel shacab dhammi wax xukumo ma jiro calaa kulli xaal waa nidaamkaasi ku salaysan waa nidaam siyaasi ah siduu hadda u yaallo ee dunidu isaga dhaadhicisay arkaan ay ka tahay in la kala saaro saddexda suldadood ama saddexda maamul ee ah suldada qadaaga ama judiciaryga ama qolada maxkamaduhu ay gaar noqdaan suldada tashriica waxa u yaqaanin ama parliamentarianku uu gaar noqdo iyo sultada dowladnimo ama xukuumadda wasiirada iyo ra-iisul wasaare iyo waxay la nooca ay gaar noqdaan maanta nidaamka dunidu qaabku u yaallo waxay yidhahdaan dimuqraadiyaddu 3 qaybood baa loo qaybiyaa midi dunida kama jirto oo waa tii ereyga dhabta ahaa uu sheegayay oo aan shacabku wax xukumo athenis baa ugu dambaysay bay yidhaahdaan xataa athenis markay ka jirtay bay yidhahdaan may ahayn dimuqraadiyad waayo shacabka oo dhan looma wada ogolayn dumarku kuma jiri jirin caruurtu kuma jirin addoomuhu kuma jirin citizenshipka rasmiga qofkaan lahayn kuma jirin waxay ahaayeen koox yaroo kooban oo filosofara iyo in dadoo la socotay kaa marka lasoo dhaafo labada nooce kale ay leeday waa nooc la yidhahdo nidaam iljamciyaat hal dowlo oo qura dunida kaga dhaqanta switzerland waddanka la yidhaahdo weeyaan waa 3 suldadood oo koox qura isku wada hayso oo ah baarlamanka ayaa qudaaduna ka tirsan yihiin madaxweynuhuna ka tirsan yahay wuxuu dhamiba koox qura ku soo ururtaa deetana nidaam iljamciyaat nidaam la yidhaahdo uu si kala daadega qaybteeda kale waa qaybtan loo yaqaano parliamentarianka oo iyana 2 qaybood u qaybsanta qayb parliamentarian qayb raasiya ama qaybtan baarlamaan la doorto baarlamaanku ra'iisul wasaaraha doorto iyo qayb madaxweynaha toos loo doorto ta Mareykanka isku soo duuduub waa nidaam ku salaysan midka u fiirso xaq iyo baatil ma yaqaano cod dheeri buu yaqaanaa
wanaag iyo samama yaqaano cod dheeri buu yaqaanaa waa maxay taa macnaheedu wuxuu xataa hadduu xun yahay oo uu cod dheeri haysto waa xalaal hadduu san yahay oo aanu cod dheeri haysanin waa xaaraam ereygaa ma fahmi karaysaa maalan khamrigu waa maxay cid tidhaahda wanaagsan yahay maa jiro dunida ku nool maya laakiin cod dheeri buu haystaa inuu xalaal yahay baarlamaanku ma mamnuuci karayo homosexualku miyuu fiican yahay homophilku cid ammaantaa ma jirto laakiin hadduu cod dheeri haysto isagaa soconaya idan markii yurub diimuhu ay tiro bateen ee afkaarta tiro badatay ee wax waliba tiro badatay qaab ay u wada noolaadaan waxay u doorbideen inuu noqdo cod dheeridayaa leh dabeetana ciddii 51% heshaan inay meesha maamusho islaamnimadu kaa way ka gedisantay islaamnimadu waa waxyu samaa alla soo dejiyey laakiin haddaad si kale u egto waa doodi karnaa oo iyagu wax dastoor la yidhahdo 2/3 marka hore ay ku dejiyeen oo aan saqafo laga bixi karin xataa kaa haddii laysla dhaafo liberalismka oo caqiida la rumaysay oo aan marnaba laga bixi karin se iyagu rumaysayin ayuu hoos yimaadaa innaguna waxaan leenahay saqaf baynu hoos nimaadnaa alkitaab wa sunna aan marnaba laga bixi karin wixii ka hooseeya markaa waa la dooran karaa haddii saqafkaasi uu nabad galo idan waa laba nidaam oo meelana isugu iman kara meelana ku kala gedisnaan kara dimuqraadiyaddu qaarna way dhaantaa iyadana islaamka ka fiican wallahu aclam labadan qaybooda kale masiixu dajaal iyo masiixu ibnu maryam labadaba waa noqon karaa calaa kulli xaal ciisa almasiixna waa la yidhaahdaa dajaalkiina masiix waa yahay wixii intaa ka faahfaahsanna mar kaleynu isweydiin ikhtilaadku rag iyo dumarka in la isku daraa ma fiicna daad ka guuri karto ka guur daad ku qasbantayna kursigaaga durugso wallahu aclam